dhammaan waxaan salaamayaa oo ugu horeeyo shirkan inta kasoo qayb gashay ugu horeeya xogayaha degmada Jariban iyo sidoo kale dhalinyarada reer Jariban oo sida quruxda badan iyo qiimaha qadarinta leh noo soo dhaweeyay oo ugu horeeya ninka la yiraahdo Maxamed Jarato oo ah gudoomiyihii hore ee ururkii hore uga dhisnaan jiray degmada Jariban sidoo kale dhalinyarada kale ee la socotay oo la yiraahdo iftiinka gobolka Mudug oo ka shaqeeya bilicda gobolka ka shaqeeya horumarkiisa isku xirka wanaagga ee dhalinyarada iyo isdhexgalka haddaan wax yar aan u gudbo muhiimadda aan Jariban ugu nimid iyo deegaamadeeda waxay ahayd walaalayaal haddaan wax yar aan kaga faahfaahiyo waqtiga iska yar awgiis horta anagu waxaan la yiraahdaa iftiinka gobolka Mudug waxaan wadanaa magaca ay gobolka Mudug oo dhan ma wadana Galkacyo kaliya ma wadana gobolka magaalada Galkacyo gudaheeda kaliya laakiin anaga waxay tahay mas'uuliyadda saaran ee magaca wadano inaan tagno degmooyinka gobolka Mudug oo dhan hoos taga walaalayaal degmada Jariban waxa soo gaarsiinay sida u jeedaanin marka uu koowaad geedahan halka in kaga muuqda geedaha aan degmada Jariban ugu talagalay ama aan soo gaarsiinay waxay ahaayeen 100 geed 100 geed hay'adna ma siin waxa weeye safar naga soo bixin nooma soo gadin mushaharna ma siiso annaga isxilqaanay jeebkayaga waxa weeye lacag ka arurnaa xafiiskeena Galkacyo ku dhex yaal iyo korontada jeebkana ka bixinaa dhirtaana waxa weeye jeebkeena ku soo kadnaa dad baa waxay aaminsan marka mararka qaar kood tagtiin magaalada inta dhex joogto dad baa xilay mashruuc hay'adee ka socota wasaaradda deegaanka ka socotaanin ma cid kale inay xil saaratay waxyaalaha laakiin runtii waxaan ii sheegaynaa caawito oo waxa weeye aan kaga marqaati furayaa geedaha aan wadno inay cidna nagu taageerin annaga mooyaane aduu ururka dhalinyarada ee iftiinka gobolka Mudug wuxuu dhisay muddo sanad ku dhow Jariban waxay nasiib u yeelatay markii koowaad mashruucan oo Galkacyo ka dhex baxo magaalada Galkacyo oo gaaro degmooyinka degmada ugu horeysay ee la gaarsiiyay waxa weeye degmada Jariban waxay kaloo nasiib u yeelatay iftiinka gobolka Mudug inuu wato waxa weeye oo safar galo oo degmooyinka ku aadayo in ay raadiso urur dhalinyaro ka baxsan gobolka oo degmooyinka uga shaqeeyo gobolka si toos ugu xiran المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد maamulka degmada Jariban oo ugu horeeyo xogayaha dhalinyarada haldoorada ah degmada Jariban dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxa farxad gaar ah inoo ah haddaan nahay dhalinyarada iftiin gobolka Mudug inaan nimaano degmada Jariban oo degmada ugu horeysay iftiin gobolka Mudug oo yimaado oo ka bilaabo barnaamijka guriga geed oo u yimaado in dhalinyaradii Jariban iyo la isku xiro dhalinyarada Galkacyo waxaan rabaa inta aanan u galagelin qorshahayaga iyo ajendaha meesha aan u nimaanay iyo kulankeena caaway inaan warbixin kooban ka siiyo iftiin gobolka Mudug magaca dhalinyarada hadda inay timaaday marka doonaysa xilqaamayaasha ah waxa yiraahdaa ururka iftiin gobolka Mudug waa urur dawliya waa urur haysta shahaadada aqoonsiga heer degmo iyo heer gobol ururka waxaa la aasaasay July 19 2018 waxa uu sanadkiisan doonaa insha Allah July 19 waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in iftiin gobolka Mudug halkan uu ku yeelan doono xubno ka tirsan IGM oo ka howlgala degmada Jariban ururku wuxuu ka mid yahay isqaamiyaasha guud ee horumarinta Puntland ee IHP loo soo gaabiyo ka dhisan Puntland ururkan wuxuu leeyahay laba gole labada gole waxa weeye golaha sare iyo golaha fulinta muhiimadda loo aasaasayna waxay ahayd in wax ka qabto gobolka Mudug deegaanadiisa iskuna xiro maxaa la yiraahdaa dhalinyarada kana qayb qaato horumarinta iyo bilicda gobolka Mudug iyadoo aan la waranayn degmada Galkacyo arintaas halkaana keentay ururka iftiin gobolka Mudug labada gole buu leeyahay golaha sare waxa loogu talagalay waxa weeyaan loo aasaasay muhiimaddu ahayd in ay ku yeeshaan xubnaha golaha sare ay noqdaan maxaa la yiraahdaa degmooyinka golaha sare ururka waxa loo soo doortaa si dawliya oo dimuqraadiya qofkii musharax waxa uu soo sharaxaya ka bacdina xubnaha ururka ayaa isku imaanaya qof iyo cod baan loo dooranaya qofkii soo baxa oo waxa weeye wareegga koowaad soo baxa cod bata ayaa noqonaya gudoomiyaha sidaas aan lagu doortaa insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo
inaan wax badan ka tusi doono haddii ilaahay maxaa yidhahdaa doorashada iftiinka gobolka mudug iyo sida xeerarkiisa sharciisu shaqeeyaan. haddii aan u guda galo ajendaha meesha aan nimid waxay tahay inaan ka shaqeyno bilicda iyo horumarka degmada Jariban. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hambalyan u dirayaa dhalinyarada Jariban iyo maamulka Jariban iyo bulshada reer degmada Jariban. horumar ballaaran baa ka socda, dekedii baa dhismaysa, jaamacaddii baa dhismaysa, wadadii baa dhismaysa insha Allah. waxaan rajaynaynaa iftiin gobolka mudug ka qayb qaadan doono, inagoo maanta markii ugu horreysay aan keennay dhirtaas waxa weeye 100 geed. 100kaa geed maaha markii ugu dambeysay uguna horreysay aan keenayno dhir aan nimaanana deegaanka degmada Jariban. waxaan rabnaa in badan inaan nimaano oo aan waxa weeye isku xir aan samayno dhalinyarada degmada Jariban iyo degmada Gaalkacyo oo anaga ugu horreyn waxaan rabnaa in isku xir yeesho. isku xirku waxa uu fududeeyaa waxyaalo badan maadaama aynan toogin maxaa la gobolkii mudug oo waxa weeye degmadu ay waxa weeye aad uga fog tahay. isku xirkii iyo baahiyihiinii maxaa la yidhahdaa aysan aad waxa weeye maxaa la dhahaa aysan u imaan karin maxaa la dhahaa degmadii Gaalkacyo gobolkii mudug inaan anagu gudbino baahiyihiinii, in baahiyii degmada Jariban loo gudbiyo maxaa la dhahaa dowladda Puntland oo waxa weeye anaguna aan usii gudbino IHB. isku xirkaasaa keenaya inaan halkaan imaano caawana aan waxa weeye shir la yeelano degmada Jariban haldooradeeda dhalinyarada ahaa iyo maamulkeedii. waxaan aad ugu bogaadinayaa dhalinyarada Jariban inay ka faa'iidaystaan maamulka degmada Jariban oo u heelan horumarkooda. waxa weeyaan waxaan rabnaa inaan hadda waxa weeye isku xirno dhalinyarada Jariban iyo kuwa Gaalkacyo. muhiimaduna ay tahay inay waxa weeye la arko degmada Jariban iyo Gaalkacyo isdhex galay. salaanka bacdigeed waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo qodobo yar. xaqiiqatan dhammaanteen waxaan nahay dhalinyaro. waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarta. xaqiiqatan dhammaanteen waxaan nahay dhalinyaro. bacdama aan dhalinyaro nahay, waa maxay waajibaadka ka saaran dalkeena? macnuhu waxa weeye inaan fahanno waajibaadka uu inuu ku leeyahay dalkeena. haddii aynaan fahmin waajibaadka uu dalkeena inuu ku leeyahay, haddii aynaan fahmin dalkeena xilka inagana ka saaran, haddii aynaan fahmin waxyaalaha munaasabka u ah dalkeena inaan ka dhex muuqanno, haddii aynaan fahmin inaan horumarsano dalkeena, haddii aynaan fahmin in aynu ku faanno dalkeena, xaqiiqatan dhalinyarada halkaas kugu timaaday ee leeyahay aqoon-yahano weeye wax ka jira ma jirayaanay. runta in laisku sheego way fiican tahay. xaqiiqatan waxaa haysanaa jaanis aan ku horumarin lahayn dalkeena, kulana tartami lahayn dalalka kale oo dariskeena. sidaas la'alliga dhalinyarta waxaan ku boorinayaa weli waxaa haysataan jaanis aad dalkiina ku horumarsataan, waxaa haysataan xoog aad dalkiina ku horumarsataan. waxaa laga yaabaa qaybteen inaysan shaqaynin, laakiinse waxaa loo baahan yahay waqtigeenna, maskaxdeenna iyo muruqeenna inaynu gelino dalkeena. taas waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada. intaas ka bacdigeed barnaamijka halkaan u nimaanay iftiinka gobolka mudug nooca halkaan u taagannahay. waxaan leeyahay dhammaan dhalinyartii halkaas kugu timaaday oo sharafta badan leh kusoo dhawaada iftiinka gobolka mudug. intaas ka bacdigeed iftiinku wuxuu u baahan yahay inaan wada shaqeyno, in kana dhexdhacdo wada shaqeyn toos ah. haddii aniga aan joogo degmada laakiinse adiga u baahantay inaad deegaankaaga aad hormarisid, waxaa loo baahan yahay in isku xir timaado meeshaas. sidaas la'alligeed dhammaanteen waxaan u baahannahay inaan isku xirnaano si aan deegaankeenna u horumarino. waxaan u baahannahay dhammaanteen inaan xasuusanaano inuu waajibaadka horumarinta deegaankeenna gidgiina uuna saaran yahay, ama jaamacad kaymow ama kii deegaanka joogay noqo. sidaas la'alligeed maxaa lagaga baahan yahay? haddaad rabto inaad deegaankaaga horumartid, waxaa lagaga baahan yahay inaad deegaankaaga u hudhid naftaada si aad u horumarisid. waxaa lagaga baahan yahay inaad waqtigaaga gelisid deegaankaaga si uu kuugu horumaro. waxaa loo baahan yahay in aad noqotid qof diyaar mar walba u ah heegan u ah heegan u ah inuu waqtigiisa geliyo deegaankiisa. intaas ka bacdigeed maamulka sharafta leh waxaan ka codsananaa caaw dhalinyarada halkan way joogtaa, dhammaanteena waa iskugu nimaanay. waxaan rabnaa inaan furno xafiiskii dhalinyarada degmada Jariban. ujeeddada ugu weyn oo u yimaadeen Jariban oo ah degmadii ugu horreysay oo nasiib u yeelatay in loo imaado oo mataqaanaa lagala qayb qaato horumarka waxaa weeye inay mataqaanaa Jariban ay tahay dhalinyaro fiican ay joogto, meel mataqaanaa ay ka soo bixi karaanin dhalinyaro aad u wanaagsan, hoggaan leh, mustaqbal leh oo Soomaaliya dhan ay ku hirsan karto. cumuuman hadafka laga leeyahay iftiinka gobolka mudug baa wuxuu yahay inuu gaaro dhammaan gobolada Soomaaliya min mashriq ilaa maqrib inuu mideeyo. marka waxa weeye hadalkayga anugu badin mayo, waxaan ku soo koobayaa in iftiinka gobolka mudug dhalinyarada Jariban, ururka Jariban ay si fiican ula shaqeeyaan, ay si wanaagsan ula shaqeeyaan, ay iyagu ka mid noqdaan, ay ka wanaagsanaadaan,
ay mar walba horumarka ay hiigsanayaan mid ka sarreeya ay la hiigsadaan. intaas ayaan kusoo koobayaa. assalaamu calaykum waraxmatullah. oo ka shaqeynaya waa arrimihii deegaanka hadda waxay ka shaqeynayaan. marka waxaan rabaa inaan wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Puntland baaq u diro oo aan dhaho dhalinyarada tan ka shaqeynaysa arrimaha deegaanka oo horumarinaysa arrimihii deegaanka oo dhirtii beeraysa waa inay garab istaagaan, waxay ku caawin karaan ay ku caawiyaan, oo ay waxay qalab iyo dhir iyo dhaqaalaha ku caawin karaan ay ku caawiyaan. ka dowlad hoose ahaan anagu geedaha noo keenteen waanu beeraynaa, positionada ku fiican baanu ku beeraynaa, qaabka ugu fiican baanu u beeraynaa, waanana bilownay oo waanu idinkala wareegaynaa meelihii aanu maarata ku calaamadin lahayn ama ku shubi lahayn hadday tahay public service-ka meelaha ah sida jaamacadda la dhisayo, iskuulaadka, isbitaalada, laamiga aanu rabno hadda insha allahu la dhagax dhigayo hadda rabno magaalada dhexdeeda ka dhisno geesihiisa, dowladda hoose meelaha ay maaragtay uga baahan tahay intaasoo dhan waa ku beeraynaa insha allahu. bismillaahi raxmaani raxiim. caaway iftiinka gobolka mudug wuxuu degmada Jariiban xogayaheedii iyo dhalinyaradii degmada Jariiban ka wareejinayaa dhirtii 100 geed ahayd ee uga qayb qaadanayeen horumarka degmada Jariiban iyo barnaamijkii loo magac daray Jariiban guri iyo geed. waxaan rajaynayaa insha Allah inaan xogayaha geedii ku wareejino, mas'uuliyadda dhirtaasna ay xogayaha iyo dhalinyaradu ay qaadaan. waxaan hambaliyay bogaadin aad iyo aad ugu dirayaa maamulka degmada Jariiban iyo dhalinyaradeeda. waxaan leeyahay waxaa ka sii wadaan halkaas horumarkeena dadaalkeena. waa mahadsantihiin xogay soo dhow. waxaan caawa kala wareegaynaa ururka iftiinka gobolka mudug geediha ay noo keeneen oo ay ugu deeqeen degmada Jariiban oo 100 geedaha oo ay ugu talagaleen Jariiban geed iyo guri. insha allahu tacaala aad baad mahadsantihiin waan kala wareegaynaa. annaguna waxaanu idinka ballan qaadaynaa inaanu ku beeri doono meelihii aad ugu talagasheen insha allah. waa ku mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa. kuwo kaloo badanna waa idinka sugan inaad noo soo badisaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. khayr allah idin siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.